laakiin in laga saaro muslimka. waa xildhibaan Maryan Haruun waxay maalin ka hor golaha sharci dejinta ka sheegtay in sharciga hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha laga saaro qodobka tilmaamaya in qofka muslimka kaliya loo dhiibi karo xilalka hay'adda jinsiyada ee lagu okeeyo inuu yahay Soomaali oo kaliya, taas oo ay ula jeedo in Soomaalida aan muslimka ahayn ay xilalka qaban karaan dalka. hadalkaas ayaa u muuqda mid ka hor imaanaya qodobka labaad ee dastuurka dalka oo dhigaya in islaamku uu yahay diinta dawladda isla markaana aan la soo saari karin sharci aan waafaqsaneyn mabaadi'da guud ee shariicada islaamka iyo maqaasideeda. Soomaali boqolkiiba boqol inay muslim tahay waa aaminsanahay waana nahay, laakiin waxaa la sheegaa qaar aan ahayn inay jiraan. kuwaas ma kala noqonaynaa waaye Soomaalinimada. waxaan dhihi lahaa meeshaas muslimka ay ku taallo ilaahay ayagana ha ka dhiga muslim buuxa, laakiin in laga saaro muslimka ayaan soo jeedinayaa, mana diidani haddii lagu daraayo, laakiin kuwaan muslimka ahayn aan u ducayno inuu ilaahay muslim ka dhigo, laakiin Soomaalinimadooda ay taagnaato. taasna waa soo jeedin lahaa. durbadiiba hadalkaas dood ayuu ku dhaliyay fadhiga baarlamaanka. xildhibaan Idris Dhakhtar oo ka hor yimid hadalka xildhibaanada ayaa yiri inuu yahay Soomaali muslim waa sax. dastuurkeena dhigayo qodobka labaad dastuurka islaamku waa diinta dawladda, lamana soo saari karo sharci aan diinta ahayn. annaga muslim aan nahay boqolkiiba boqol muslim aan nahay. Sheekh Cabdixayi oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay in qofka xil ummad muslimiin u qabanayo uu la caqiido yahay, sidaa darteedna loo baahan yahay inuu islaam yahay. Soomaalidu taariikh ahaan ama mar hore ha ahaato ama hadda ha ahaato waxa adduunka oo dhan yani loo yaqaan Soomaaliya inuu yahay wadan muslim ah, dadka ku nool ay yihiin dad muslimiin ah. saas daraadeed qofka xil ka qabanaya inuu dadkaas nooc yahay ku caqiido yahay waa laga maarmaan. waa in marka sidiisa loo daayo maxaa yeelay magaca Soomaaliga ah ayaa aslanba yani taariikhda saas ku ah. marka saas daraadeed maadaama dadka muslimiin ay yihiin yani in yani sharcigaasi meesha ugu qoran inuu sidiisa ahaado, heshiiska hore loo galayna ama qodobo kamid ah qodobada dastuurka waxa kamid ah yani qaanuun kasta oo shariicada islaamka khilaafsan waa wax kama jiraan. marka iyadoo taa la tixgelinayo inay noqoto yani qofka mas'uulka u noqonayo ummadda inuu muslim yahay. xildhibaan Dalxa ayaa ku dooday qof Soomaaliya isla markaana islaam ah inuu xilal ka qabto dalalka shisheeye, isagoo tusaale u soo qaatay Ilhaan Cumar oo kamid ah golaha Koongareeska Mareykanka. waxaan ognahay dood baa dhalatay bir dhaweyd ayadoo waxba aadan ka jirin bangiga Soomaaliya ayaa waxaa la yiri waxaa loo dhiibay nin cadaan. hadduu ninka cadaanka ah baasaboor Soomaali u haysan lahaa oo jinsiyad Soomaali u haysan lahaa, wax sharci ah oo asaga u banayn karo ma imaan kari lahayd hadduu baasaboorkeennii uu qaatay. marka sida aan leeyahay ninka Soomaaliga ah ee haysta dhalashada Canadianka ama Americanka ah uu xaq u yeeshay inuu ka tirsanaado hay-adaha sarsare ama golayaasha dalalkaasi inuu ka mid noqdo, oo sida Congress Lady maanta ay Ilhaan u tahay aqalka cad ee Mareykanka. Sheekh Cabdixayi oo aragtidaas ka soo horjeeda ayaa mar kale sharxaya. marka intaas wax laga yaabaa dadka qaar inay isku khaldaan oo ay dhahaan midaan meelaha kaleeba dadka aan muslimka ahayn xilal waxa ka qabta dad muslimiin ah oo dawladaha kale u ogol yihiin. marka maxaa loogu diidayaa in halkan ay ka qabtaan? waxay kula duwan yihiin wadankan ayaa wuxuu yahay wadan dadka ay muslimiin ay yihiin. haddii ay dhici lahayd midaan sida Masar oo kale, Masar asxaabtii ayaa tageen, Amr ibn Caas ayaa furtay markuu u tagay meesha dad aan muslim ahayn oo Kirishtaan ah ayaa meesha joogay, dad muslimiin ahna diintii way soo galeen oo muslimiin ay noqdeen. marka maadaama dadka loo tagay oo bulshada meesha degan ah qaar kamid ah ayna soo galin islaamka, yani islaamkuna uusan qofka ku qasbaynin ama waan ku dilaya ama islaam noqo arintu ayna ahayn. haddii uu yani diido inuu islaamka soo galo isla markaas uusan dhib ku haynin qof inuu noolaado rabo oo wadanka iska deganaada uu rabo, maxaad aad muslim u noqon weyday daraadeed looma dilo oo waatu ilaahi laa ikraha fi diin. laakiin haddii la keeno qof aan muslim ahayn oo la yiraahdo midna waa Soomaali yani madaxa idin noqdo, horta Soomaalidu ma yeelayaan. Soomaalidu waxay wax ku qaybsadaan waa qabiil Soomaaliyeed oo dhahay midna gaalkooda waa gaalkeeni qabiilkeenu gaal u yahay madaxana looga dhigo ma jirto. waxay keenayaan qof muslim ah. marka saas daraadeed dhulkan Soomaaliyeed waa dhul taariikhdaas leh in marka siisa loo daayo ayuu ku fiican yahay. Haajir Abdulqaadir, RTN TV, Muqdisho. waxaan marka ugu horeysa sida culimadu ay khayr Allah siiyay uga hadleen aan
ku biiranayaa codkayga hambalyo weyn oo aan u soo jeedinayno iyo duco walaalaheen guddoonka aqalka golaha shacabka guddoonka golaha shacabka Soomaaliyeed gudoomiye maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo gudoomiye ku-xigeen cabdiweli sheekh mudoy runtii waxay qaateen mowqifkii taariikhiga ahaa ee lagu yaqiinay ee wadaniga ahaa islaamiga ahaa iimaaniga ahaa ee ay ummadaas shalay kitaabka ku mareenay shalay ka dhabeeyeen inay ilaaliyaan hadalka aad u xambaarsanaa qiirada iyo geesinimada iyo wacyigelinta iimaaniga ah oo ay soo jeediyeen labada gudoomiye runtii ummadda Soomaaliyeed iyo culimada Soomaaliyeed meel kasta joogto aad bay ugu diirsatay waxayna ka turjumaysaa dhaartii ay dhaarteen markay xildhibaanimada qaateen oo yiraahdeen waxaan Ilaahay ugu dhaarnay magaciisa inaan ilaalino danta dalka dadka iyo diinta maxaa yeelay saddexdaas oo la ilaaliyo oo waliba diinta ugu sii weyn tahay ilaa dal iyo dad jiri maayaan haddaan diinta la ilaalin ayay shalay si dhaba uga turjumeen waana ku mahadsan yihiin waxa kale oo aad u muhiim ah in hoosta laga xariiqo Soomaaliya burburka waxa u sababa meeshay maanta taalo inay taalo waa diinta oo ka leexan anagu diinta waxaan uga leexanay 60 meeyada laga soo bilaabo ilaa maanta waxaan ka tagnay inaan shariicadeena ku dhaqanno waxaan ka tagnay akhlaaqdeena wanaagsan ee suubanay Soomaalida lagu yaqaan islaamka oo leeyimid inaan ilaalino waxaan ka tagnay xataa inaan anagu iswalaalaysano isjeclaano qaraabo goysa noqono dagaalada iyo colaadaha waxa noogu sababa sida Ilaahay Quraanka noogu sheegay faal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa taqaddu arhamakum waxa weeye marka dhulka waxaan ku fasaadinay oo dhiig isaga daadinay oo soo u burburnay waxa weeyaan inaan Ilaahay ka jeesanay marka sida guddoonka uu soo jeediyay oo ay ku celceliyeen qaanuunkan magac xun leh oo sida culimadu ay sheegtay qaanuunka jinsiga ay ku magacaabayaan eray bixintiisa af Soomaaliga xataa afka laga dhowranayo laga sheegi karin foolxumadiisa oo dabada 3 sano lagu hayo aniga qofkii ugu horeeyay oo ka soo dhaca ayaan ahay xukuumadda ra'iisul wasaaraha hore ayaa 2018 bilowgeeda ayaa intii loo soo gudbiyo gabadha wasiiradda soo gudbiyay sida aniga la keenay Sheekh Bashiir iyo Shanuur iyo culimadan u gudbiyay 7 jeer san ka yeelanay waxaan ka qornay fasaadka ka buuxay aan soo gudbinay markaasuu golihii wasiirada maray ayadoo maartay sidiisii ku soo maray haddana markii dib haddana loo saxay ayay haddana qoladii wali daba socdaan inay asagoo fasaadkiisii wato oo sidiisii hore ah oo wasiiradda ay ku soo gudbisay in golaha la marsiiyay u dagaalamayaan marka wax shaqeynay ma ah gudoonkuna mowqif sax ka qaatay culimada iyo ummadda Soomaaliyeed boqolkiiba ku raacsan yihiin waxa way marka walaalayaal yaan wax laga raadinin in wax Ilaahay ka caroonayo oo gabdhaheena wiilasheena akhlaaq xumo u keenayo oo dalku ku burburaayo in dalkan qaanuun looga dhigo dhaartiinana haburina xildhibaanada waxaas daba socdaan Ilaahay ka baqaano midda labaad gabadhaas iyaduna tiri shardi ma aha in qofka xilka loo dhiibayo muslim uu yahay ka dooday si uu yaani maarta waqaaxale waliba xisho darro ah baarlamaanka hortiisa uga hadashayna Ilaahay ka baqdana tooba keento waa kitaabkii ku dhaartay bi burinaysa iyada lafteedu qofka muslimka in lagu geesinimo galay diintiisa inuu ka baxo ma aha waxay ka bixin diinta inay dadku ka baxaan oo xuquuqdooda wadaniga ay helayaan iyago murtadiin oo diin la'aan ah oo islaamka caayay islaam ka baxay ayay dadka ugu yeeraysaa waxaasna wax shaqeynaya ma aha marka waxa waaye shuruudda dastuurka ku qoran tahay wax kasta oo diinta islaamka hormaan inay ibrayaan qof kasta oo Soomaaliya xil inuu ka qabto raba madaxweyne ilaa kan ugu hooseeyna waa inuu ahaado qof dhaqanka iyo diinta ummadan haysto muslim ah hadduu yahay qof diin kale tafaafinayo dalka inuu dadka diinta ka fasaadiyo raba oo soo gaaloobo diintiisa ka ridoobana meesha uu ku ridoobo ku gaaloobo iska aado laakiin dalkan diintiisa in la fasaadiyo marna ma la aqbali doono insha Allah